odayaasha beelaha kumada ee ku dhaqan degmada Kismaayo ayaa maanta xalfad soo dhaweyn ah u sameeyay suldaanka guud ee beesha tuni 7 toore Suldaan Fiqi Sayid Suldaan Fiqi kaas oo muddo fog ku maqnaa dalka dibadiisa dhawaana soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Munaasabadan oo ka dhacday hotel Kismaayo ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin iyo waxgaradka kale ee beesha kumade waxaana ujeedka xalfadan ay ahayd in lagu soo dhaweeyo suldaanka guud ee beesha tuni Suldaan Fiqi Sayid Suldaan Fiqi. Madasha waxaa khudbado kala duwan ka jeediyay salaadiintii iyo odayaashii dhaqanka ee ka soo qayb galay xalfadani waxaana salaadiinta ay sheegeen inay soo dhaweynayaan wafdiga uu hogaaminayo Suldaan Fiqi Sayid Suldaan Fiqi. Munaasabadan maanta waxa weeye waxaan ku sharfaynaa in astaahilo qaali ah oo isna oo suldaanka tuni ah oo deegaan ah nagana astaahilo inaan marka koowaad anagu aan la kulanno kulankana maaha kulan siyaasadeed waa kulan deegaan waa isim weeye waxaan leenahay anoo ku hadlaya magaca salaadiinta Jubbaland gaar ahaanna beesha maanta meesha fadhida waxaan leenahay suldaan soo dhawow reerka annaga reerku adigoon iman buu nagu fogaa adigoon iman buu reerkaasi nagu fogaa reerka haddee waan isnahayba derisna waa nahay tollo waa nahay wax walba waa nahay qaraabaan nahay waxaan rabaa inaan ku idhaahdo waqti fiican baad la kulantay waan kugu soo dhawaynaynaa dowladda cusub baana la qodob qaadaynaa wixii xaquuq meesha ay u lahaydna waan ka raadinaynaa wayna helaysaa ilaahay idamkii insha allah way helaysaa waxaad ku soo dhawaataa qalbi furan gacmo furan iyo dhulkaagi hooy dhaarahan ka xunay soo martay baa jirtay maalin fiican oo magac jiro oo madax jirto oo madaxweyne leedahay baarlamaan leedahay insha allah wixii dhimanna adaa yiri waan dhammaystiray. gabagabadii ayaa madasha xalfadda waxaa khudbad dheer ka jeediyay Suldaan Fiqi Sayid ka oo uga mahad celiyay soo dhaweyntii diirneed ay u sameeyeen odayaasha dhaqanka waxaana dhanka kale amaanay madaxweynaha maamulka Jubbaland oo uu sheegay in muddadii uu xilka hayay wax weyn uu ka qabtay ammaanka iyo waliba horumarada deegaanadan. maanta waxaan dareemayaa farxad runtii iyo kalgacaltooyo ay sameeyeen dadka aan walaalaha islaamnimada ku walaalownay deegaan ku walaalownay ee Soomaaliyeed beesha weyn ee kumade anigoo og in uu jiro waxyaabaha la soo maray ee ugaaska maanta uu xusay in beeluhu runtii احترام وآد وين وصوجرين هكذا حيو مد جان هديه يهاي مد دقن هديه يهاي انت بوي وداجان هم سميد هذا عن بلابي معها وحليه هاي واحد تيم سمدي كنتي مرول بنا لليه هاي هوشو أيجا أتاجن مركا إن شاء الله تعالى وحنا لليه هاي سودوين تينا وجاسك أيها كفوا قارئ وشيء كنتي أنا مرحبا إذا يعني جي يوقف دقيقة وانو إذين نمي وانو إذن كلام قيب قادرينا كوي هوري أصور دستينا إلهي هيدين كاجرسيو وحن لنا هاي جبلان والنبات إلهي مهدي بيكوها هاتي دبا كشقيهي وحن لنا متعلم ونوكالي اختار ونوكالي ninka ma aragtay ee noo bartay sharciyada noo kaalay ilaadan maxamed degane TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo.